wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeya ee Soomaaliya waxaanu eegi doonaa waan si gaar ah u dul istaagi doonaa waxa ka soo kordhay shirweynaha lagu dhameystiraya maamul goboleedka SSC Qaatumo kaas oo maalmihii ugu dambeeyay uu ka socday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool hadda waxa soo baxaya in la magacaabay ergo ka kooban markaasi 15 xubnood kuwaas markaas kala imaanaya gobolada Sool iyo Sanaag ergadan oo 15 xubnood ah ayaa waxa ay markaas wararku sheegayaan in ay u qaybsadeen sida soo socota 7 xubnood waxa la siiyay Maakhir halka 8 la siiyay SSC Qaatumo guddiga la magacaabay ka kooban 15 xubnood ayaa waxa ay soo xuli doonaan 101 ergo oo markaasi dooran doona madaxweynaha maamul goboleedka SSC Qaatumo kaas oo dhawaan lagu dooran doono magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool shirweynaha ka socda magaalada Laascaanood ee lagu dhameeyo maamulkaasi ayaa waxa hareeyay khilaaf aad u fara badan kaas oo markaasi u dhaxeeya ismada dhaqanka iyo sidoo kale madaxda maamulkaasi iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya waxaana si weyn shirkaasi kaga soo horjeeda maamulada Puntland iyo Somaliland Puntland baarlamaankeeda maanta waxa ay xilka ka qaadeen gudoomiyaha hore ee baarlamaankaasi Cabdirashiid Yuusuf Jibriil kaas oo maalin ka hor magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool kaga dhawaaqay in uu guud ahaan iska casilay xubintii xildhibaannimo uu ka hayay baarlamaanka Puntland asagoo sheegay inuu dadkiisa uu la dareen yahay magaalada Laascaanood xarunta gobolka Soolna uu markaasi uu ku sugnaa halkaas oo uga qayb geli doono isla markaana uu qayb weyn ka noqon doono maamulka cusub ee halkaas laga dhisi doono Somaliland si weyn ayay maanta arrintaasi kaga soo horjeesatay oo saddex xisbi qaran ee maamulkaas ayaguna waxa ay yeesheen shirweyne arrintan uga tashanayaan waxaana shirka isugu yeeray madaxweynaha maamul goboleedkaasi Cabdiraxmaan Cirro saddex xisbi isugu yeeray waxaana si wada jir uga soo horjeesteen shirweynaha ka socda magaalada Laascaanood isla markaana lagu dhisayo maamulka cusub ee SSC Qaatumo Somaliland waxay sheegtay in arrintaas ay tahay mid dandaansiya isla markaana aan marna la aqbali doonin waxayna sheegeen in tallaabo sharci waafaqsan ay ka qaadi doonaan cid kasta oo ku lug yeelata inay ku soo xadgudubto dhulka maamulka Somaliland oo sida hadalka u dhigeen sidoo kale waxa jira khilaaf aad u ba'an oo isaguna ka dhex jira kamid ismada dhaqanka SSC Qaatumo iyo sidoo kale xubno ka tirsan maamulka SSC Qaatumo ee iminka ka jira magaalada Laascaanood sidaan ognahayba magaalada Laascaanood waxa ka socda shir isdaba jooga oo dabcan la doonayo in dib lagu soo celiyo isla markaa lagu qanciyo xubnaha mucaaradka inay qayb ka noqdaan shirka lagu dhameystirayo maamulka SSC Qaatumo isla markaana si weyn ay shirkaas soo dabatarayeen maamulkaasi Cabdulqaadir Cali Firdhiye ayaa dadaal xoogan ugu jira sidoo dib ugu soo celin lahaa shirkaasi garaadka guud ee beelaha dhulbaante garaad jaamac garaad cali oo si weyn kaga soo horjeestay shirkaasi waxaana sheegay in shirkaasi aysan ogeyn haba yaratay meel lagaga tashaday waxaana markaas maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland waxa asaguna sidoo kale shirkaasi ka soo horjeestay Suldaan Siciid oo asagoo kamid ah suldaanka guud ee beelaha Warsangeli oo ku dhaqan markaasi asaguna magaalada Garowe oo maalmihii ugu dambeeyay uu ku sugnaa suldaanka guud iyo sidoo kale garaadka guud ee beelaha dhulbaante si weyn ay arrintaas kaga soo horjeedaan hase yeeshee arrintaasi waxa markaasi si weyn u qaadacay oo markaasi ku tilmaamay garaadadaasi waxa ay wadaan inay wax ka jiraan tahay qaar kamid ah ismada kale ayaguna ku dhaqan magaalada Laascaanood si weyn u taabacsan shirkaani inuu halkaas ka socdo marka shirkaani maalintii saddexaad ayuu dabcan galay waxaana la filayaa in maalmaha soo socda la soo gabagabay doono iyadana guddiga 15 ka ahayd oo ugu dambeeyay ee soo xuli lahaa 301 ergo ee dooranaysa maamulka SSC Qaatumo ee madaxdiisa maanta halkaas lagu soo gabagabeeyay oo guud ahaan la soo buuxiyay waxaana la filayaa in maalmaha soo socda shirkaas halkaas lagu soo gabagabeeyo sidoo kale warar soo taraya waxay sheegayaan in gabagabada shirkan uu ka qayb gali doono madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la filayo in 30 bishan uu booqan doono magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool kaasoo iminkaba hore laga soo bilaabay magaalada Laascaanood gudaheeda laga bilaabay abaabulka soo dhaweynta ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadana inkastoo warkaasi uusan ahayn war aad u xoogan haddana markaad fiirisid guuxa dadweynaha iyo sidoo kale qaar kamid ah ismada dhaqanka ayaguna carabka ku dhiftay in ay suurtagal tahay inuu madaxweynaha Soomaaliya u booqdo arrintaasi weyn ay u xoogan tahay waxaana la filayaa inuu shirka uu soo xiri doono madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhismaha maamul goboleedka SSC Qaatumo ayaa iminka waxa hareeyay khilaaf aad u fara badan oo iyo sidoo kale isjiid qaar kamid ah yeesha dhaqanka ka baxay sidoo kale maamulada Puntland iyo Somaliland ayaguna si weyn kaga soo horjeeda iyo sidoo kale odayaal dhaqan marka
guud ahaanba marka aad fiirisid dabcan maamulka goboleed kasta oo la dhisayo khilaaf la'aan ma dhismo oo waa jiraan tabashooyin fara badan oo dadka qaarkood ay ka muujiyaan hase yeeshee marka ugu dambaysa maadaama dowladda federaalka Soomaaliya arrintaasi ay garwadeen ka tahay waxa u badan tahay inuu maamulkaasi uu guuleysto oo ugu dambayna la doorto madaxda maamulkaasi SSC Khaatumo oo dhawaan la filayo in halkaasi lagu soo gabagabeeyo